المسير كيجا عن عقف خرابة أو مجرد سنين لقى سكر يستي أنا لو قادن كريم مالك كعدينية هذا عقفتا عن مجرد سان كويرا مارتين نقضوا هذا الكيدا عقفتا سوحوي عقف مارتين لمن مارتين دنجار اللي هي بونبونيين وهاي هاي عقف خرابة وهي هاي استاد كبير كبير ويدي ما عقف أنا لو مدحولكم بحين كرايلو هالكن هذا كان هالكنكي أنا غير كي يقول اللي قاعد بالك قالوا وري فقشتك قالوا وري تو بابر عصبة ساد رادد مدحوين اللي ماذا يمحي تي حسب الماذا يمد والبمارة لفيا مال دوا ميلان وسهل الجلو وحوين أيانا جا مغن ما ترجع لي هذا عقف خرابة وين نقول راعين مني هنا وكان وين لوحة أنا جا أقوى الله يا مارتي أفكا ددوينها مارتي الشعب كنغشي هالكن وحن كعدينا يا إن أي دقمدو أي مارتي محي تاي دقمة أنقول تنقل كرين دقمو محي تاي أنقول تنقل كرين أي تاي إن دقمة مقراصة محي تاي ميله أو ميل مارتي محي تاي كنت حلقة أي تاي إن تاي دقمة أنا عدو ولا بقى أنا كل حساب تمي كرين وحتى عدينوا وحوي دقمدي وحوي ودقمدي مارتي هلقن كا تاوح عدينوا وحوي دقمدي ودقمدي هلقن كا ودقمدي مشاهدين تا يمحي تاي السلام المضى ay ka soo abuurantay waa degmadii maxay ahayd la shay kulmiye wadani inaanay wadani ahayn halkaas ay ka muujinaysaa raggii hore dhameeyay wax laga daba oranaya ma jiraan inay kulmiye caana tahay oo aanay meel labaad lahayn oo baydhis lahayn oo qofka yiri mucaarad baan ahay aanu reer dhaqashay baa ahayn taasi waa cadaan banaan yaal warciidu waa dhidiboo dhiigii ragga ay qabtaa dheeman lama siisanina dhalasho waa xaqli shisheeye markuu qabsaday uu raggii shirabay markuu sida daabixiisa ila dawdaldelay markuu sida daa'imada daadshay hilibka badan dubaha lala dhacay ninkii diirnax lagu arkaba war madalkaad joogtay mise dabadaha jirtay sanamo giigsan oo geestan sara fadhida markay muruga iyo ciil maalin qura kaceen markay halgameen markay haabta kulul galeen halya igiya geesigii hobiyihii la tegay markay ciidii heleen ee ka heesayeen war madalkaad joogtay mise dabadaha jirtay wax badan baa inaga dadan oo dalkeena yaal wax badan baa inaga dadan ay danteenu tahay niman daacad ku ahayn adigu ha u danayn war hoy duca qaata oo daasta ciida mudan war hoy ha wareejinina weynaha jiree xor baa tahay wariyaan xoolo lagugu hodin wariyaan hogagii horiyahaaba lagugu gurin hoos u eeg adigu ciidaada hodanka badan qof hadal meelu ka yiri iyo meel wax laga soo qaatay midna kaga bayri mayno xirsina kaga bayri mayno markuu wasiir ahaan xirsi dhoqashay ma ima jirin maanta waxaanu nahay kulmiye ninka la yiraahdo wasiir cali mareexaan oo isagana aad iyo aad u taageersanoo degmooyinkayga wax badan u qabtay xildhibaanka waxaan kaloo ku darayaa ninka la yiraahdo ilm maxamed cali xirsi isaguna oo xildhibaan oo degmada dhoqoshay ka tirsan waxa ay raacdaan ninka maanta reer dhoqoshay ama dad dhoqoshay metelaya ee wadani ka hadlay been bay sheegeen ee yiri reer wadani baan anigoo ku hadlaya afka dadweynaha reer dhoqoshay inaanu nahay marka hore ma taageerayno xusbiga laakiin waanu nahay oo waanu samaysanay oo annaga dhisanay xusbiga reer dhoqoshay wuxuu ka mid yahay dadka xusbiga kulmiye samaystay ayuu ka mid yahay halkan waxa kale oo laga nuunayaa had jeer laga soo qaadaa la isku hayaa magaalada xildhibaanadeeda iyo wasiiradeeda wasiirka degmadani waa cali maxamed xasan cali mareexaan waa la yaqaanaa wax badanna wuu ka qabtay dadku siyaasadda waa isku khilaafi karaan waa binaadana way isqaban karaan laakiin waxaanu caddaynaynaa wasiirka degmadani inuu yahay cali mareexaan eeduna uu yahay maxamed cali xirsi obama meel qallalan aan waxba jirin miyaynu qaban karnaa meel qallalan aan waxba jirin miyaynu qaban karnaa olole ma bilaabmin olole markuu bilaabmo nin waliba wuxuu hayuu soo dayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo nin waliba wuxuu doonuu hayuu soo dayn doonaa hadlac miidaan waa la beretamaya haddii ilaahay ka dhigo ninkii waxaya isagaa sheegi wuxuu hayo allahu akbar allahu akbar somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato kulmiye ha guulaysto muuse bixi musharaxa madaxweynaha mustaqbalka ha noqdo
reer dhoqoshay waxay doonayaan insha allah dawladdaas dhalanaysa ee kulmiyaha ka heleen xisbi haddii aanu taageero kulmiye kaga tegayno waxaanu kaga tegi lahayn udubkii 20 mashruuc dhoqoshay ka fuliyey sabab waa xirsi oo maanta cagaf kharaaba dhoqoshay intuu dhex keenay ay u istaarmi weydeen deegaanka dhoqoshayna waxa uu sheegayaa cagaftii kharaabka aydin habeen horeba la raray aanay jooginba waxaan kaloo aan leeyahay wakti baa iska dhacay hadduu wakti dhacana kolley dee raggu waa rag baydhbaydha waa la arkayaa saban baa jira wixii naga baydha xisbiga ka baydha waxba yaynan ku shimbarwaaqlayn muujinaynaa oo aanu xisbiga kulmiye aanu u sheegaynaa guddoomiyaha xisbiga muuse biixi cabdi oo ah halgamaa weyn dhoqoshay inaanay gorgortan geli tegin oo aanay geli karin oo ay tahay xisbiga kulmiye 7 cod baanu berigaas siinay ninka la yidhaahdo udub 7 cod baanu siinay haddaanu waddani nahayna dee 7diisu baanu siin doonnaa iska sakagoyska xoolaha dee waxbaa lagu tilmaamaaye sakagoys baanu ka dhigaynaa intaa halkaa waxaanu taageero buuxda uga muujinaynaa guddoomiyaha cusub ee iminka degmada loo soo magacaabay waxaanu sii sagooteennaa guddoomiyihii hore iyo waxqabadkiisii wanaagsanaa uu noo muujiyey cagaftaasaa naloo soo dira fayris ahayd tiinaad naga noqotay halganka snm markuu watay waxaa lagu soo hagaagi jiray meesha ufadiisa iyo siigadiisa sida roobka ay ka baxdo sidii snm oo ufiya uuna kicinaysa ama ururkii muuse faqasha taagaya iyo armigii watay iyo elelkii boodayey iftinkiisa ruuxii aragtiyaamowyo indhihiina waxay doonayaan inay ku eegaan allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar kuwa halgamaya na waxay sharaab ku cabbayeen baa la mooskay sharaab ku cabbayeen